shalay waxa ka socotay xaflad caleemasaar Muqdisho waxa loo caleemasaarayay ninka la yiraahdo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo horta aniga xafladda iyo madaxweynaha inaga Soomaaliland duca iyo habaar midna u dirimayna maanta waayo midna naga u taysan duca iyo habaar iminka mid oo rabayno laakiin ninka loo dabaaldegay Maxamed Cabdullaahi madaxweynaha cusub ee la doortay wuxuu leeyahay waxyaalo ka uu kaga duwan yahay kuwii ka horeeyay ilaa intii madaxweynaha laga dooranayay ugu horeeyay Cabdisalaam Qaasim iyo Cabdullaahi Yuusuf iyo Shariif Xasan iyo Xasan kii shalay ka degay waxyaalo kaga duwan yahay jira waa marka koobaad wuxuu ka mid yahay dhalinyaradii aad ugu jibaysay tarskiisii aad barre ee u soo shaqaysay ee markii dalkan Soomaaliland duminayay diblomaasiyiintii la lahaa New York joogay meel hoose baa joogay ee lahaa waxna lama layn waxna kuma dhiman iyadoo 50,000 oo qof ku dhinteen Soomaaliland oo 20,000 oo kamid Hargeysa aan ku aansay rag dafiray uu kamid ahaa ee diidana ilaa Maxamed ragii waxa ku garanayay in la duqeeyo xaq baa loo leeyahay oo Soomaali way duminayaan qodob labaad intooda hore wada Soomaali baa ahay isagu waa muwaadin Mareykan waa American citizen madaxweynihiisa uu dhaartay oo daacad u yahay Trump ninka la yiraahdaana 7 dal oo wixii af Soomaali ku hadla kamid yahay ayuu ka munaa cadalkiisa inay soo galaan iyana waa qodob cusub isaga u yaala isaga madaxweynihiisa muwaadinka u yahay waxay Soomaali u hayaan oo dhan iyo waxay muslimka la diiday u hayaana waa su'aal isaga u taala waa saddex wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya hal qur'an bay wax ku noqonayaan dadka isugu imanaya shir waa inay jirtaa waxay soo golayeen waxaan isu waninba dadka isugu imanaya shir laba kisahaade laba arday haday qaran isku qabsaa waa horta qaran kanaal yana la ku murmaya laakiin hadii la isugu yimaado shirar aan waxba la isoo goleen waxna isku diidaneen Soomaaliland ka qayb gali mayso kuwa horaanu tagnay oo nu aragnay isuma dhowin isku hadaf banahin meel kama wada duunayno waxaan qurun bay noo quuraan oo kookay waa maxay Soomaaliland ma qaran jiray Soomaaliya kama tiina la hadla warta miyanu geena deeshalay ma oran markuu hada waan wada hadlaynaa qaranka Soomaaliland walaaladayda waqooyiga mani waqooyi Soomaaliland balna qaran baan nahay dhiig baan ku soo xariisanay ninna ma haybisano ama adeerka taram u yeero ama cid kala doono Soomaaliland qaran ah hadaad la hadlayso hadaad qaran Soomaaliland oo goshooda hadlayso isu keekeen hadii kale yeeyna isku absaabi barnaamij waxaan soo dhaweynayaa horseed dhalinyarada kale mutacalimiinta oo dhan inaan raayaasha ka duulabaan jecelahay raayaasha inala haray ku noqon maayo waa laga hadlay haday qabiilo tahay haday qaad tahay haday is-aamin la'aanta tahay haday tafraaruq tahay horan ugu soo habsaanay hawl badan baa inoo taala dhalinyarada waxay sugaysaa i'tiraafku wuxuu ku imanayaa isha laga arko i'tiraafku wuxuu ku imanayaa isha laga arko waxaan maqlaayay qolo dhalinyaraha la yiri waxa lagu shirinayaa xalay qolo ii sheegaysa baalkan muxuu ahayn Facebook ayaa xalay nagaraad ay telefoon wuxuu yiri waxaan ku akhriyay Farmaajo iyo dawladdiisa oo ururinaya dhalinyarada Soomaaliland oo Turkiga safarti ku shiriyay oo shaqeeya waxay lagu ballan qaaday caloosha shaqaysto maanta ninka halka tago meenu ka heshiina wixii dhaxmaray diyaarada Hargeysa lagu rusheeyay meel laga heshiiyay umushilay meel laga heshiiyay caloosha shaqada qaan yara nabad goor ma laga heshiiyay wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh